masjidkan ayaa dhowaan dhul looga iibiyey xaafadda Dabaqeen ee degmadaasi kadib markii dadka xaafaddaasi isla garteen in baahi masjid ay ka jirto xaafadda ayaa waxaa u suura gashay inay ku guuleystaan iibinta dhul bannaan si wadajir ahna u gudagaleen dhismaha dhulkaasi oo iminka maraya meel bilow ahi waxayna maanta qeybaha kala duwan ee bulshada xaafadda Dabaqeenka sida culimada odayaasha iyo dhalinyarada isugu yimaadeen jeedinta baaq ku aadan sidii dhismahaasi masjidka looga qayb qaadan lahaa isla markaana iyaga keligooda ku filneen ayna xoogooda iyo xoolahooda heerkan ku soo gaarsiiyeen balse looga maarmi waayay habsami u socodka iyo dhameystirka dhismihiisa masjidkan kaalmada walaalaha muxsiniinta ahi ee ku dhaqan dal iyo dibad kuwaasi oo mar walba jecel u tartamida wanaaga loogana faa'iideysan doono masjidkan sida uu sheegay injineerka gacanta ku haya dhismihiisa haddii ay hirgasho sida la damacsan yahay in laga dhigo ilaa 3 biyaano oo dabaq ah loona qorsheeyay koobaad iyo labaad in ay ku kala dukadaan ragga iyo dumarka halka biyaanada saddexaadna laga dhigi doono madrasad caruurta lagu abaabiyo ama diinta lagu baro ugu horeyntii qaar ka mid ah culimada ayaa ku nuuxsaday liibaanta adduun iyo midda aakhiro ee laga dhaxlo dhisidda beedka Alle masaajida waxa weeye waxa loogu talagalay in ilaahay lagu caabudo tabaaraka wa tacaala qaala tacaala wa anna al-masaajida lillah فلا تدعوا مع الله أحدا مساجد إلهي با إسكاله فلا تدعوا مع الله أحدا عدكاله هكبر ينينا الله معيسي كليجي عبادة أخالص يالا سيدا درادت باوح محوها وحا ممنوعة مشركين إني مساجد أسو دوادان محايالي ومشركين إلهي غير كي بيعابديان لما أقول الله وحير تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر إلى آخر الآية وما هبونا مناسبنا وماءها ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله إلهي مساجديسي إن يسوع عمران مناسب وماءها ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر إيقو قال الله ما أقول وممنوع يا لو أقول لها مساجد السوقلية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله إلى آخر الآية ومساجد السوع عمره وعمران حسي إيا مد معنوي ويهشة عدي الله رميسة إيا مالين كدنبه صلاة أوكتا أو توسسة زكاة بحسة عد أن الله أهينا أن كبقين مركا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وحاسوق لي إمارة وحاسوق لي مساجد كي إن لديسو مساجد كي لنظيفيو مساجد كي ضيعتر كي سلقا ورهيو أيا سوق ليو وحو رسولك نوشي عليه الصلاة والسلام أهمية داس مساجدك إلهي درتد قفك إلهي درتيسا مساجد أدسا سيد حديثك نلغض الآخريي من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة قفك إلهي مساجد أدسا إلهي قري أيا جنة أدسا لما انتين وان جعلنا هاي شنئنا نهلنو أسبابتي لغو قاري لها وفرصدان وحلقان تاغان dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala fursadaas oo maanta u calafay inay ka qayb qaataan oo wax ku darsadeen Ilaahay ka aqbalo dadka kale muslimiinta kuwa hadda jooga iyo kuwa in maqlaya ama ay arkaya dhamaantood waxaan ugu baaqayaa fursadan maanta jirta qof kasta oo ka faa'iideyso waxa laga yaabaa maanta kii shaminda ah oo masaajidkaas aad ku darsatay inuu sabab u noqdo adiga Ilaahay dambigaaga inuu dhaafo waalidkaaga inuu u naxariisto waalidiintu waxay u baahan yihiin in baari loo noqdo iyagoo nool iyagoo ay dhintayba waxa laga yaabaa waalidkaagi oo hore u dhintay oo maanta u baahan yahay amal sida rasuulku noo sheegay insaanka markuu dhinto idaa maata al-insaanu inqata amaluhu illa min thalath insaanku markuu dhinto amalkiis waa go'a 3 maahina sadaqatin jaariya sadaqa jaariya masaajidka waa meesha ugu habboon lacagad galisay masaajidka ayaa dhistay
waxa laga yaabaa adduunyadan adiga hadda waad dhimanaysa waxa laga yaabaa maanta ama bishaan ama sanadkan inaad dhimato laakiin masaajidka aad dhistay adduunyadan magaaladan intuu lagu nool yahay hadda lagama baqayo in masaajidka intii la dudumiyo aqal laga dhigto waxa laga yaabaa boqolaal sano inuu saas u dhisnaado lagu cibaadaysto qof kasto soo gala salaad ku tukada qof kasto quraan ka akhriya qof kasto saas oo kaleeto ilaahay ku xusa ajarkaaga lagu qoraya sadaqa jaariye ku tahay markaan waalidiintana ha looga faa'iideysto oo annaka lafteeni sadaqada la baxayo sadaqada guud ahaanba sida rasuulku noo sheegay calayhi salaatu wasalaam wasadaqatu tudfi'u al-khadi'ata kama yudfi'u al-maa'u an-nar sadaqada waxay bakhtiisa dunuubta sida biyaha dabka ay u damiyaan dunuubteen aad bay u fara badan tahay si ilaahay dambiga nooga dhaafto maalkeena aan gashano meelaha la hubo oo khayrka ah waxa laga yaabaa maanta inaad haysato kuus ama lacag akoonka ay kugu jirto aad isleedahay wax ku dar laakiin waa laga yaabaa inaad ka dhimato laga dhaxlo waxa laga yaabaa inay ka lunto laakiin haddii aad horumarsato beedka ilaahay aad gashato ama waalidkaaga dhintay maanta u baahan ducadaada ayuu u baahan yahay sadaqadaada ayuu u baahan yahay aad u niyeysato camalkaas iyo shaqadaas aad qabsatay wax ka lumay ma ahan dhinaca kale laba xubnood oo ka tirsan guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidkan cusub ayaa ka warbixiyay halka wax ay u marayaan iyo dhamaystirka loo baahan yahay masaajidkan meel way ka yaalay aragtay dhulkan ka yaalay madibna way waa indhahayna dabaqeen iyo masaajid shawri aan dhahayna zoonkan way ku jirtay baaha masaajid odayaal badan oo ma arnay oo masaajidkan dirisda ah yaniin kooyan way la maadaama masaajid baahdiis meel arday ku jirto dabaqan ni dheeri shawri ni dheeri dhaku baana marka way baan ereen odayaalka qaar ku mid ah in dhulkan ma aragnay lankiin lahayn ka seetan masaajida ka weeladaan warbixin saasan oo gudbida khayr alla si lanka dhulkan lahaay masaajidkan dhulkan hata langadi oo la ka weeli bacma ku hayn لعلو خير وإلهي بركة مديون إنجيدني مساجد كان أرد ويرن لوكان أمباهنا مساجد كويلان ويفضانا إني لوكي أرد خنتكون كسينا لوكين نسيد ويبان أري أرنتي هذا حكشور يعني لما هم يهون ومقنادي همين سدهاد مدي عشاء الله قمي أمل يهني ويري ويبان أري مساجد كي isin hata maadaama dhulkii ataan baayin ku hayn oo isin masaajid hal jeelateen way baan eray bishurud nootayda siin la seede in isin masaajid qoraasan yashuru siin kwale lacagti qonto kiina siin qaade yan eri ilaahay khayrsi qiimahan dhulkan way rooy 60 kun lama qodob ahsan inka suubi dhulka oo 60 kun rooy tumaani ku tabi خندوان وقاضي وضب كلمات بعم كوهين روكا أنا ما خاطر قوي ضد معنا روكا باهن أنت باسين جيم بعم أنا ما خاطر قوي هذا مركان أرتلان كر روكا لو كوجادي نساسا حسن إنك سوب إلهي بركة مساجد ك قيمين إنجنير كنا سماعي وعقوق قيمي مساجد لبا بيانا غيب دمركو يكون عبادستان iyo raggu isku cibaystaan oo qayb dhaxa ah iyo qayb sare oo madrasa ah iyo qayb hoose oo ragga ah qiimeynta uu injineerku sameeyay wuxuu ku qiimeeyay $378,565 materialka inta gashay waxa noo yaalo waxa nala ku leeyahay oo deyn ahaan ah boqolkii 35 yaa gashay oo lacag ah oo u dhiganto 132,000 waxaana la ku leeyahay waxaana la ka rabaa hadda oo maanado baro material wax walba isku jiro $246,565 walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inay nagala qayb qaataan masaajidka dhismihiisa ee lacagtaas nacaawiyaan fadlan ka qayb qaado dhismaha masjidka Quba ee degmada Dherkinley adigoo uga qayb qaadan kara kaalmadaada lambarada iyo akoonada ku qoran boorkan waxaana ku soo diri kartaa wax walba oo aad awoodida
waa maxamed yuulka inta aan muuqaal kan lamida kulmi doono waxaan idin leeyahay ha loo tartamo wanaagga.